sanado kadib qof waliba oo Soomaali ah maanta saadaalintiis waxay ahayd in uu noqon doono bilyaneerka isla markaana aysan jiri doonin wax la yiraahdo dabaqada hoose. 25 bari kadib markabkii soo socday ama la sugayay ayaa maanta soo cagadhigtay gudaha dalkeen hooyo ee Soomaaliya kaasi oo sameyn doono baaritaanada la xiriira 3D-da shidaalka ama saadaalinta shidaalka. qayb yar oo ka mid ah taariikhda shidaal qorista Soomaaliya ayaa rabnaa inaan dib u milicsano noo taawo linkiga isla markaana gaarsii saaxiibada kale. 3 sano ka hor xurriyadeena dalkeen hooyo ee Soomaaliya sanadkii 1957 ayay ahayd markii ugu horeysay ee la sameeyay baaritaanada la xiriira shidaalka. ceelkii ugu horeeyay ee baaritaan shidaal laga sameeyayna waxa uu ku yaalaa deegaanada waqooyi ee dalka. tan iyo markaasina waxaa baaritaano lagu sameeyay 68 ceel halka 25 ka mid ah la sheegay in saadaalinta dalkeen hooyo shidaal badan uu ku jiro. sanadkii 2013 shirkadda Some Oil Guys ayaa iyaduna baaritaan ee ka sameysay Kismaayo ilaa iyo Hobyo ku sheegtay in shidaal aad iyo aad u fara badan uu ku jiro dalkeen hooyo.